function kan ayaan haysanaa y is equals to 2x plus 5 all over 3x minus 2 oona laka rabo inaan soo saarno derivativekiisa. marka waxaan ka rabaa y primekiisa inaan soo saarno, marka waxaan isticmaalaynaa quotient ruleka differentiation quotient rule ayaan isticmaalaynaa. marka waxaan leenahay y prime waxaa lagu helaa kanaan kor usoo qaadaynaa 3x minus 2 waxaan ku dhufanaynaa derivativeka d all over dx-ga 2x plus 5 derivativeka midka kore ayaan ku dhufanaynaa 2x plus 5 waxaan ka jaraynaa midkan kore oo sidiisa usoo qaadanay 2x plus 5 oon ku dhufanayno derivativeka midka hoose. intaa markaan samaynay waxaan u qaybinaynaa functionka hoose oo square ah. marka hadda waxaa weeyaan waxaan samaynay midkanaan soo qaadnay kor ayaan geynay sidiisa, kadibna waxaan ku dhufanay derivativeka midka kore, kadibna waxaan ka jarnay midka kore oo sidiisa lagu dhuftay derivativeka midka hoose loo qaybiyey functionka hoose oo square garaysan. saas ayuu sheegayaa quotient ruleku. marka 3x minus 2 weeyaan dhankaas. kadib waxaan samaynaynaa keliyada simplification. 3x minus 2 sidaadaan usoo qaadanaynaa, waxaan ku dhufanaynaa derivativeka midkan derivativekiisa waxaa weeyaan waa iska 2, kadibna waxaan ka jaraynaa functionkan oo sidiisa usoo qaadanay 2x plus 5, kadibna waxaan ku dhufanaynaa derivativeka midkan oo iska noqonaya 3. waxa dhan markaana waxaan u qaybinaynaa functionka hoose 3x minus 2 oo square garaysan. marka hadda waxaan samaynaynaa waan sii expand garaynaynaa 2ga haddaan waxaan ku dhufano functionkan 2da, marka waxaana siinaysaa 6x 2 times 3x waa 6x 2 times negative 2na waa negative 4, kadib minuskanaan soo qaadanaynaa 3ga ayaan ku dhufanaynaa functionkan 3 times 2x waa maxay waa 6x 3 times 5na waxa weeyaan 15 plus 15. kadib waxa idil waxaan u qaybinaynaa functionkan hoose oo ah 3x minus 2 squared. marka hadda waan soo dhawaanay dhankan saad aragtiin 6x minus 6x ayaan ku haynaa, marka labadan waxayna siinayaan isla baxayaan, waa la kala jarayaa. dhankan waxaan ku haysanaa minus 4 minus plus 15 minus 4 minus 15 ayay noqonaysaa, marka waa iska minus 19 minus 19 oolaba waxaa weeyaan 3x minus 2 oo weliba square garaysan.
waliba square garaysan marka midkan waxaa weeyaan square marka saad aragtiin waxaan isticmaalnay quotient rule ayaan isticmaalnay si aan u keeno derivative-ka function-kan